salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne. qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreedeg waxaa ugu dooro sarkaal soo bandhigay qorshe lagu dugaarinayo haabada magaalo xeebeedda berbera, madaxweyne biixi oo sadcaal ugu baxaya jabuuti iyo xasan sheekh maxamuud oo ay goradda isu geli doonaan, guugaadii oramada ee lagu qabanaya dhalooyinka universal oo la hor istaagay, madashii golaha wasiirada somalilan oo khamiista loo soo horaan qaaday, siciid cabdulaahi deni iyo axmed karaash oo qaybsaday xildhibaanadii beelaha dhulbaante, xaaji baxsane oo lagu soo warramay, gacanku dhiigle mindida shalaqsanaya oo lagu qabtay ceelka xamarar, iyo weliba cabdifataax alburhaan iyo xamdaan doogle oo la isugu soo manaqataynayo jamhuuriyadda jabuuti. wararkaasi iyo wararka oo dheeraad ayaan idin haynaayo ku soo dhowaada barnaamijkeen. ma jeceshahay barashada qur-aanka, tafsiirka, higaada iyo dhammaan culumta islaamka? haddaba ka baro goob kasta aad kaga sugan tahay caalamka. dugsiga almacaarif kala xidhiidh wixii faahfaahina nambarada shashada kaaga muuqda. wararka nagaga soo tibanaya dalka masar ayaa sheegaya inay halkaas weerar ku ekeeyeen duulka guddiga gaaban ee xuutiyiinta yeman, kuwaasoo waayadan soo qaatay ama ahaa dar alamtarana soo dhaafay. wararka ayaa damuuninaya in dhulka la ogoleysiiyey ama la soo riday cirjiir jaadka iswada oo ay lahaayeen, taasoo ay xuutiyiinta yeman gantaal kala ayaansadeen iyada oo hadaayeynaysa xeebta siina ee dalka masar. wararka ayaa intaa ku daraya in habastan sumaca lala eegtay ay ahayd mid walwaalaysay ama siday baaruud loogu tala galay in gacanta loo geliyo duulka aabiga iyo gardarrada ka wada bariga dhexeeya inta haysa. xogaha ayaa tibaaxaya in balabaalistan la wareemay ay sidoo kale ahayd mid u socotay geestan iyo carriga reeraha dooxatada, balse ay ka tabaleen ciidamada masaarida oo iyagu in dhawaalab jeedaalinayay guud ahaanba agaha badda casiya inta haysa. cirjiidhan ayaa noqonaysa tii labaad ee jaadka aan duuliyaha lahayn ee lagu halgaado dhexyaalka siinaay oo ah meel aan tahan ka dheerayn. rabadinada ay degmaysteen duulka gefku indhaha tire ee wareemata la yidhi. duulka guntiga gaaban ee xuutiyiinta yeman ayaa marar badan gamasyo ku liishaamay dhankan iyo reeraha dooxatada, iyagoo meelo badan oo ay joogeen ciidamada ay reer bogocbaarka u fidhaanna kala ayaansaday gantala mariidaysan. haddii aynu u soo kacno dalka suudaan, wararka naga soo gaadhaya dalka jabuuti ayaa sheegaya in agahaasi laga waabayo ama laga dagagarayo geed la isugu soo muqaynayo labada nin ee herbooda ciidamada birta iskaga aslaya gudaha dalka suudaan ee cabdifataax alburhaan iyo weliba ninka hor quwaaxiya duulka rsf ee maxamed xamdaan doogle. urur goboleedka igad ayaa la soo tabinayaa inay u xusul duuban yihiin sidii berri laysu soo hor fadhiisin lahaa, isla jeerkaasa daawo loogu kala qaydi lahaa labada nin ee la ysaga carro qaaday. waxaalaha ayaa tibaaxaya in ninka shaarubaha miiqa cabdifataax alburhaan uu kolkii hore ka dhaar maray gogol iyo weylaal isuula doyeysto qolyahay colka yihiin, inkasta oo hadda laga duraantay islamarkaana lagu sanduleeyay inuu soo kada loobsado meesha loogu garqaadayo isaga iyo ninkii ay dirita iskula jireen muddada dheer. dadka siyaasadda qujeeya ayaa isla tooctoocinaya in arrinka berri jabuuti loogu ballansan yahay uu yahay gololka kakaciyo waxaan waxba ka soo naasacadayn, maadaama ay weli birta isu sitaan gaas dhagoolaha geeljiraha u badan ee gaarayucunta rsf iyo weliba ciidamada qalabka sida ee suudaan. dheega kale kooxda gabraaratada ee uu hogaamiyo ninkii saalax watada ahaan jiray ee maxamed xamdaan doogle ayaa la soo warinaya inay dacalbaneeyeen ama ay ka baxeen magaaladii ay ciyoon sida ayaxa ugu degeen ee wadmadani ka gadaal markii ay ku soo kubaareeyeen ama ay kaabiga u soo fadhiisteen ciidamada dalka masar. magaalada ayaa la soo warinayaa inay haatan haawanayso oo aan dhaqaaqi loo ogeyn ceelkaasi tiyo ay guud ahaanba iskaga duguguureen ciidamadii maryacalasta ee halkaasi dhowaan looga gigay. weli wararka geeska afrika ayaynu dhex qaadaynaa ee dowladda etoobiya oo in dhawaalaba ay arrimuhu ku ciirsanaayeen isla jeerkaas uu dherigu saabka ka galay ayaa isla soo taagtay inay iska madhi kari weyday gashi ay hore u qaateen oo dhammaa 330 malyan oo waraaqaha maraykaana, taasoo aysa sii mariyeen xukuumaddii ay horboodi jireen duulkii dabada taagay ee tigreega. wasaaradda maadhka iyo dhaqaalaha ee etoobiya oo war ku soo dawisay dheegan iyo abxadaha bowladaha carreedeg ayaa bitisay inaanay haynin wixii bishan looga fadhiyay ama laga sugayey. waxay ku halaanaashay inaanay iska furin oo aanay iska faydin, islamarkaana aanay lacagtaasi xeradeeda iyo xero xigaalkeed toona ku jirin. waxay ku tawaawacday inay etoobiya ka dhaceen dagaallo kubka iyo bowdadaba lagaga jabay ama lagu riiqmay, gaar ahaana kuwii ka dhacay gobolkii lagu maduurmay ee tigree.
waxay ku dooday inay sidoo kale dalka Itoobiya jaanta soo saareen ama caasha soo saareen abaaro iyo odol daba dheeraaday. xukuumadda Addis Ababa ayaa si weyn u yaahinaysa in laga dhaafo taanooyinkan loo sheeganayo ama loo daba joogo maadaama oo Soomaaliya looga hadhay 5 milyuun ee ay hore ugu sii amaahatay qolyaha sareerada ku naalooda gaar ahaan kaydiyaha ama baanka carreedeeg. dalalka Ghana iyo Zambia ayaa sidoo kale la soo warinaya inay iska bixin kari waayeen gambooyin ay hore u soo hirqadeen kuwaasoo laga soo tigsiin waayeen inay dib ugu soo celiyaan meelihii ay ka soo dowdabeen. haddii aynu u gudubno ceelka xamar, ciidamada bilayska Soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen isla jeerkaasna ay dhuuxiyeeyeen nin gacan ku dhiigle ah oo shalaqsanayay mindi raawis ah, isla jeerkaasna ka soo firxaday sida tan carro sawaaxil. ninkan oo lagu magacaabo Axmed Cabdiraxmaan Cabdulaahi ayaa la biniixiyey inuu soo dahay wiil aan waxba galabsan oo uu ku soo shaandheeyey magaalada Nairobi, isla jeerkaasna uu ku dhow soo feelaya dhinaca ceelka xamar. ciidanka ayaa bitiyey in gacan ku dhiiglahan la horgeyn doono geedka garta qaado ee magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu eegi doono ama lagu oogi doono wixii uu geystay ama uu gashi ku maqan. wararka ayaa damuuninaya inuu ninkani u sii jeeday dheegan iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya, halkaasi oo uu maaganaa inuu kaga dhuunto duulkii uu galabta ka hayay. wararka iyaguna nagaga soo diniinaya dheegan iyo ceelka Garowe ayaa sheegaya inay si weyn isugu soo dhowaadeen labada nin ee halkaasi ka botoriya, isla jeerkaasna u kala sarreeya maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waa Siciid Cabdilaahi Deni iyo duq-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash. labada nin ayaa la biniixinayaa inay isu dhaarsadeen ama ay ku heshiiyeen in lasoo xulo dhammaanba mudanayaashii hoosha dhulbaanta ku meteli lahaa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, kuwaasoo laga qori doono ama laga soo mari doono dabakaayooyinka daasaska iyo daroolayaasha ku yaala ceelka Garowe. Siciid Deni iyo Axmed Karaash oo in muddo ahba isku muqlaystaa isla markaana isku maandhaafsanaa qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada hoosha dhulbaanta ayaa la soo warinayaa inay hadda isla guddoonsadeen sidii loo kala saanyan lahaa dhammaanba 17 xildhibaan, maadaama oo la helay suulkii iyo sumadii garaadada lagu weyraxay ee lagu horeynayo magaalada Laascaanood. arrinkan ayaa noqonaya mid hadur ka soo qaadi doona wixii ay soo galoobeen duulkii dhowaan lagu dikaday ee garaadada dhulbaan, kuwaasoo jamaahiirta iskaga furfuray hadal golo ka kaca oo aan loo fadhiyin ama aan meeshaba qaban. weli halkaad nagala socotaan waa TR TV, isaguna sarkaal ka mid ahaa ciidamadii lagu soo carbiyey dalka Eritrea oo u deeday warbaahinta aflulatada leh ayaa gabale ka caddeeyey dhagar loo maleegaya haabada magaalo xeebeedka Berbera, taasoo ay gunta ka soo tashay xukuumaddii hore madaxweyne Farmaajo. askarigan oo ka mid ahaa ciidamadii badda ee loo tababarayay xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in la qorsheeyey sidii weerar loogu ekeyn lahaa dekedda Berbera, taasoo looga gol lahaa in Somaliland la hoos keeno dowladda dhexe ceelka xamar. arrintan ayuu sheegay inay diyaarisay xukuumaddii nabad iyo nolol, taasoo qarax isula gaabanaysay dekedda Berbera si ay laf dheer uga jabto Somaliland. wuxuu biniixiyey in xukuumadda Farmaajo ay maamudaysay arrin lagu dhuundhabayo ku dhowaad 2 milyuun oo qof oo madax madow, taasoo looga gol leeyahay inuu hirgalo awoodda dowladda iyo horumarinta maamulka nabad iyo nolol. wuxuu sheegay in lasoo baray iyaga oo ka kooban 30 askari sidii loo burburin lahaa dekedaha, baaniheegyada maraakiibta, doomaha iyo maylasha ku sugan xeebaha Soomaaliya. wuxuu sheegay in la diyaariyey askarigii howlgalka fulin lahaa, kaasoo ka mid ahaa buu yidhi ciidamadii laga qortay gudaha Somaliland gaar ahaana magaalada Berbera. wuxuu tibaaxay intaasi noqotay halbacaad lagu lisay oo aan gebi ahaanba lagu guulaysan, waayo waayada waxaa aad u feejignaa ciidamada xuraanka iyo dabagalka Somaliland. wuxuu intaa ku daray inay arrintaa u soo dabaka dhiibeen Somaliland saraakiisha dabagalka iyo wardoonka ee Somaliland uga howlgala magaalada Muqdisho, kuwaasoo kala dhantaalay dhagarta loo maleegayay dekedda Berbera, taasoo Somaliland ay ku baabi'i lahayd, gaar ahaan haddii uu weerarkaasi hirgalo. si la mid ah buu yidhi weerarkii lagu gaban waray ninkii u sareeyey qolyaha imaaraadka ku aayooda ee loo yaqaano Dubayda dunida ama DP World ee ka howlgelayay haabada magaalada Boosaaso, kaasoo wax laga saaray dowladda yar ee Qatar oo ay markaa isku daabnaayeen xukuumaddii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. wuxuu bitiyey in loogu carabulay in loo qaadayo ceelka xamartaa beddelkeedna lagu furay gabaahir iyo goobatel ku taala magaalada Asmara. wuxuu sheegay inay ku silceen oo ku saxariireen talisyadii tababarka looga furay ee dalka Eritrea. intaa warranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegnaa Maxamed Aadan Dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante. roomatiisan xumaadiyo qof macaanku ku raagay riiqmayoo jidhamaaday, rajadii ka xumaatay rugtuu booqan lahaaban kuu bayaaminayaaye dadweyne way dhegaysta. rajab weeye hubaal rugta ay bulshadeennu u riyaaqday ee gaadha rucleeyo hadda booqo xarunta daaweynta macaanka ama sokorta ee Rajab Medical Center. waxaad ka helaysaa daawooyinka macaanka oo tayo sare leh, kuwaasoo ay hubaal tahay inay kaga bogsoon doonaan dadka uu xanuunka macaanku hayo ee baa dabiibka bixiye. Rajab Medical
center waxay ku taallaa xaafadda Xeraawr gaar ahaan ka soo horjeedka Jabane Mall wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir areenada shashada kaaga muuqda.